إيران أي جواب علوس كبحسي وركي إسرائيل أي كقادين مجلة طهران عاصمة وطنك إيران إذا مدى عرك إيران أي ورر جنتالو إزدبجوجها كقاضي مجالوين كواوين جذاها إسرائيل دوق ديجنينتا دقيمها أي لجم مقلي مجالوين كتل أبيب إيو جيروسلم تاسو سببتي إن دتكو أي عرران حرمها جبادك أي دولك هوستي سكويلا يدو جنتالو حريرة أو لجسور دي إيران أي كهوبتين جذاها مجالوين كاسي جيروسلم إيو تل أبيب ملتريجا إسرائيل أي شيء إن نظام يدو الدفاع عركة أي سبب وشقينيان إنك سواء أني كهرتجين جنتالة بلاستيك هذا إذا ماذا عركة إيران أي كوررين جذاها إسرائيل ساعده قدام بيجي رحن جنتالة أو لجسور ذي جذاها إيران أي كدل هابتي جذاها إسرائيل تاس أو كنتي إن قصاروين كل الدول يسوجر دمشق يداوع أي كذا شان إنك سو إسرائيل أي قريسي قصرها رسمي جاها أي كذا شيء ورك جواب علنته إيران أي كقاضي إسرائيل إذا ماذا إسرائيل أي وحى شجر إن كوحها جرمت كدقدق أي كهول جلين ملك الدول أو كترسن جذاها إسرائيل الله شجر إن جنتالو أي سيد الرب كأكلا أي أجوهبتين بلس كما أيسن عدلنا قصرها كذا شيء وكلا دورك تسنين إيران أي شيكتي إن دور قرح لجم مخلي عاصمة تل أبيب إسرائيل وربعين فارس أيضاً كذا كورنتي إن مدافع دا عيداً كإيران أي كهوبتين جذاها إسرائيل يدو أي إيران حقيقي سي إن جنتالة ذا جواب علنتا أي قصار باحد له جيسين جوب جوجيال ورمي وكالة دورك رويترز أي شيئين إن أي مخلين قرحي حوغن وملها قاركود دادكو أي كعررين مع دا قصارها رسمي كذا شيء ورد جواب علنتا أي جنتالها إيران أي كقاضي جذاها إسرائيل بل سيعيد مدى جرمت كدقدق إسرائيل أي كهول قلي جوبها جنتالة أي كهوبتين وكالة وراركا إيران أي شيكتي إن إيران جوابتي وحو جنيد أي كبحيسي وراركا إسرائيل أي كقاضي مقالة طهران يدو سبه كله أي إسرائيل إيرانيين كشيغين وراركا جواب علنتا مد أي كدونيين إن الباب النار أي كفران إسرائيل وربعينتا إسرائيل أيضا كذا كنت المامتي جنتالة kuwa ku hobtay goobo dad shacab ah ay ku sugnaayeen wakaalada wararka Faris ayaa sidoo kale sheegtay in Iiraan ay qaaday weeraro xagga cirka ah oo xiriir ah taas oo jawaab looga dhigayo weeraradii Israa'iil ay ku qaaday magaalada Tehran weeradan duqeymaha ee Israa'iil iyo Iiraan ayaa dagaal ka bilowday bariga dhexe Tel Aviv gudaheeda ayaa waxa ku hobtay gantaalo aad u tiro badan isla markaana ku hobtay dhismayaal dabaqyo ka kooban ee ku yaala xaafada Ramad Gan agagarka Tel Aviv iyo goobo kale adeega gurmadka degdega Israa'iil ayaa sheegay in 70 qof ay ku dhaawacmeen agagarka Tel Aviv badankoodna ay ahaayeen kuwa dhaawacyo fudud qaba balse goobjoogaal ku sugan gudaha goobaha ay gantaalada Iiraan ku hobteen ayaa sheegay in ay jiraan qasaaro kala duwan isla markaana gantaaladaasi ay burburiyeen dhismayaal ku yaala gudaha magaalada Tel Aviv wakaalada wararka ee dawladda Iiraan ee IRNA ayaa sheegtay in Tehran ay riday boqolaal gantaalo oo kuwa ridada dheer kadib markii Israa'iil ay duqeysay xarunta ugu weyn nuclearka isla markaana ay dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada cirka ee Iiraan sargaal sare oo ka tirsan ciidanka badda Israa'iil ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii argoosiga ahaa ee Iiraan ay ku qaaday gudaha Israa'iil inkastoo Israa'iil ay ka gaabsatay in wax faahfaahin ay ka bixiso qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka argoosiga Iiraan ay ku qaaday dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa waxay وشكتي ورسعافدد أي صوص هرتي إن مرحلة هذا للجوجو أيسن وضحضل وحبا كبدل كرين تاسو موجنيسا إن تهران أي ديار أطهاي إن أي سيو دو دقالكا أي كل جرتو إسرائيل قربينتا إيران أيا وحا أي كورانتا إن سردونكا إيران قعنتا أي كوديغان لبقاري أو لغسو بوحيي والحاها قرحا أو دياردها عن دوليها اللهين أي كجران كواس أو أموغدا إن لو دياريي وررو أبابولان أو لدون
doonayo in Israa'iil ay ka sii wado gudaha waddanka Iiraan. labada gaari ee la qabtay waxaa lagu sheegay in ay ahaayeen xamuul, waxaana lagu qabtay gobolka Zanjan, halka gaariga kalena oo ahaa Toyota Hilux lagu qabtay magaalada Karmeesha. waxaa kaloo la xiray shakhsiyaad la sheegay in lagu tuhunsan yahay in ay la shaqaynayeen Israa'iil. ma jiro macluumaad rasmi ah oo ay sirdoonka Iiraan ay baahiyeen, hase ahaatee waxaa dunida ka yaabiyey jawaabta ay Iiraan ka bixisay weerarkii ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen gudaha magaalada Tehran. safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in xalay aad u adkayd duqeymaha Iiraan ay ka geysteen Tel Aviv, iyadoo Tehran ilaa hadda 6 goobood u garaaceen gantaalada. safiirkaas ayaa intaa waxa uu ku daray in 5 jeer xalay uu cararay goobo dhulka hoostiisa. dhanka kale CNN ayaa soo xiganaysa sarkaal sare oo Israa'iili ah ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ay ku jiraan god, isla markaana la xoojiyay ilaalada iyagoo qiimeynaya xaaladda kadib markii Iiraan ay xoojisay weerarka argoosiga ah ee ku qaaday magaalooyinka Tel Aviv iyo Jerusalem ee gudaha Israa'iil.